الحمد لله وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maanta waxaan noo bilaabanaya darsigeeni labaad ee kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wasunna ahaa. darsigeena san hore usoo sheegnaba su-aalihii jawaabo weeyaan. su-aasha maanta cashirkeena uu ka bilowda waxaa weeye, hal nacbudullaha alla miyaan ku caabudeynaa khawfan anagoo ka cabsanayno iyo watamcan anagoo rajaynayno? nacam, nacbuduhu waan ku caabudeynaa kadaalika sidaas anagoo ka cabsanayno ilaahay kana rajaynayno jannadiisii maqfiradiisa ayaan caabudeynaa. qaala tacaala, ilaahi wuxuu yihi yasifu lmu'miniina asagoo mu'miniinta tilmaamayo, yadcuuna rabbahum rabbigooda waxay baryayaan khawfan ayagoo ka baqdimayo oo cadaabka allah ka baqayo iyo watamcan ayagoo rajaynaya maqfirada allah iyo jannadiisa. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi asagoo ducaysanayo, as'alu llaha aljanna, allah waxaan weydiisanayaa jannadiisa, wa acuudu bihi min annaar, waxaana ka magangelayaa naartiisa. waa xadiid saxiixa, waxaana wariyay abu daa-uud. su-aasheena waa cashirka labaad, waxaa weeye, maa huwa alixsaanu fi lcibaadati? ixsaanku muxuu yahay cibaadada dhexdeeda? ixsaanku waa martabo min maraatibi alcibaada kamid ah, martabo maraatibta cibaadada kamid ah weeyaan. alixsaanu ixsaanka huwa muraaqabatu llahi fi lcibaada, inaad ilaahay ku muraaqabaysa cibaadadaada dhexdeeda weeyaan. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yihi, allah waxaa weeye aladii yaraaka kii ku arkayay xiina taquum markaad cibaadada u istaagayso, iyo wataqalubaka gadgadoonkaada fi saajidiina dadka sujuudsan dhexdooda ee salaada u taagan ee la rukuucaysaad la sujuudaysa kii ku arka weeye ilaahay. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi, alixsaanu ixsaanku waa an tacbud allaha inaad ilaahay caabudo kaannaka taraahu sida adigoo aragto, fain lam takun taraahu haddaada adiga arkin fa inahu yaraaka asaga ayaa ku jeedo. rawaahu muslim, muslim ayaa wariyey. meesha waxaan kaga soo baxaynaa baabkii ahaa xaqullaahi cala alcibaad, xaqa uu ilaahay ku leeyahay addoomihiisa. waxaa meesha ka gelaynaa marka anwaacu tawxiid iyo fawaa'idkiisa, tawxiidka intuu u qaybsama iyo faa-iidooyinkuu leeyahay. su-aasha u horeysa waxay tahay, limaada arsala allahu rusula? ilaahay muxuu rususha usoo diray? arsalahum, ilaahay wuxuu usoo diray lidacwati inay dadka ugu yeeraan ilaa cibaadatihi cibaadadiisa iyo wanafyi shirki canhu, in ilahay wax lala wadaajiyay inay ka anfiyaan. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yihi, walaqad bacahnaa waxaanu dirnay fii kulli ummatin ummad walba rasuulan ayaan u diray an icbudu llaha inay ilaahay caabudaan ayaan la diray, oo wajtanibu taaguuta inay ka fogaadaan waxyaabaha taaguudka ah. ummadahooda inay dhahaan ilaahay caabuda oo ka fogaada ilaahay wax kastoo taaguud ah. taaguudku sheekhu hoos buu ku fasiray, wuxuu yihi taaguudku waxaa weeye ashaytaanu, shaytaan weeyaan, addaaci ugu yeedhay ilaa cibaadati gayri illaahi, waxaan ilaahay ahayn keyrkiis caabuditaankeeda dadka kii ugu yeedha weeyey taaguudku. marka ambiyada wixii lala soo diray waxay ahayd inay adoomada ilaahay ugu yeedhaan inay ilaahay caabudaan oy ka fogaadaan wax walbo ilaahay shirki iyo kufri oo keeni karo lala wadaajiyay inay ka fogaadaan. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi, waalambiyaau ambiyadii ikhwatun waa walaalo, wa diinuhum diintooda waaxidun waa hal. waa xadiidka waa muttafaqun caleyh. ambiyadu waa walaalo, diintoodana waa hal. diintooda lala soo diray waa an icbudu llaha wajtanibu taaguut. wasali allahuma wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin.